بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب سورة وحال هذا سورة الطارق magaceedana was-samaa'i wat-taariq daas ayaa laga soo qaatay waa suura makiya ah quraankii maka ku soo degay ayay kamid tahay suuradan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan arki doonaa bacd makhluuqaatihi ayuu ku dhaaranaya makhluuqiisa qayb kamida ayuu ku dhaaranay wuxuuna ugu dhaaranayaa insaanka oo nooca bani aadamka la yiraahday inuu yahay mid la ilaalinayo oo acmaashiisa la xifdinayo inuu yahay oo qof la iska sii daayo oo san ahayn oo waxa arka samee la yiri arintaas ayuu Allah ku dhaarani aan arki doonaa mar labaad ayuu Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhaaranayaa makhluuqaadkiisa qayb kamid ah ayuu hadana ku dhaarani wuxuuna ugu dhaaranayaa quraanka ilaahay nabiyilaahi Muhammad uu ku soo dajiyay inuu xaq yahay inuu yahay mid faasilun bayna al-haqq wal-baatil haqq iyo baatilka mid kala saara inuu yahay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala oo ku dhaaranaya suurada marka waxaan arki doonaa tahdiida lagu khatimi doonaa oo gaalada mukadibiinta ah kufaarta oo Allah tahdiidayo ayaa lagu khatimi doonaa oo arki doonaa insha Allah ta'ala sida Imam al-Bukhari fi sahihi oo ku warinayo وكذلك إمام النسائي في سننه oo ku warinayo حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر با وحو ليهي معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي قاس ايا صلاه المغرب صحابه تجيي صحابه قيب كميده ايو صلاه المغرب تجيي markaasoo wuxuu ku tujiyay suuratul baqara iyo suuratul nisaa labada suuradood buu ku tujiyay waana salaadii maghrib way arintii baa marka nabiga loo sheegay salawaatu Ilaahi wa salaamu alayhi Muaad marka nabiga uu la hadlay wuxuu ku yiri afatanun ya Muaad mafatan baa tahay mid wax fitneeyo miyaa tahay buu yiri ma kaana yakfika an taqra bis-samaa'i wat-taariq wash-shamsi wa duhaaha wa nahwi dhalika miyana kugu filnayn ina suuratu at-taariq aadadka ku tujiso salaada maghribka ama suuratu ash-shams wa duhaaha oo kale ku tujiso miyana kugu filnaan iyo waxa la midka ah marka halka waxaan ka qaadanaynaa suurada dheer maghribkiina aan lagu tujinaynin nabiga kaleey salaatu wasalaam salaada subhi ayuu wuxuu ku tujin jiray suurta dheer oo la yiraahdo tiwaalul mufassal wa hadda anaga aan khamiis loo yaqaan jalaadka khamiis la yiraahdo kuwada dheer suurtaas salaad subhi nabiga ku tujin jiray salawaatu Ilaahi wa salaamu alayhi marka suurtii maghribka la amray in lagu tujiyo ayay kamid tahay suuratu at-taariq weeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim was-samaa'i samadii baan ku dhaartay iyo wat-taariqi xidigii guureynayay ayaan ku dhaartay wama adraaka maxaa ku ogeysiyay ma maxaybu ahaaday الطارق حدق قوريا oo habeenkii socdaahi wax uu yahay maxaa ku ogeysiyay yaani ma ogaan kartid inuu Allah ku sheego mooyee markaas loo fasirayo la yiri an-najmu huwa an-najmu حدق طارقه والنجم حدق وي حدقاسو الثاقب يعني افيو oo iftiinkiisa meel walba kulligii mugdi kasta kulligii uu ka dusaayo ka weeyaan baa leeyahay
marka ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluuqaadkiisa qaybtoo doona ayuu ku dhaartaa samada iyo xidigahaas ayuu rabbi ku dhaartay subhanahu wa ta'ala wax badan quraanka waan ku aragnaa inuu ilaahay ku dhaarto shay alla shaygu doono uu ku dhaarto weeyaan marka at-tariq waxa la yiraahdaa wa an-najmu al-mudhi'u ba la yiraahdaa asalka tarqiga la yiraahdo xagga luqada waxa la yiraahdaa ad-daq ba la yiraahdaa gargaraaca irida la garaaca iyo waxa la midka ah ayaa tarqiga asal ahaan la yiraahdaa walidalika waxa la yiraahdaa qofka habeenkii waqti dambe yaani yimaado oo gurigiisa u soo hiido saaca mutaakhir habeenimo waqti dambe soo galay yaa waxa loo yaqaanaa tariqa la yiraahdaa maxaa yeelay wuxuu u baahanayaa albaabkii iyo iridii inuu gargaraaco ayuu u baahanayaa dadkii oo seexday albaabkii xirtay ayuu iimaan markaas uu gargaraaci marka tariq baa la yiraahdaa qofkaas oo kale baa la yiraahdaa nabigeena kaleey salaatu wasalaam waa uu reebay oo yaani wuxuuna ka reebay nimanka xaasaska leh in dumarkooda habeenimo ayagoonan filaynin si faj'a ah inay ugu yimaadaan ama safar ha ka soo galeen ama meel kale ha ka yimaadeen ayadoon la filaynin inay faj'a ugu yimaadaan si kada ugu yimaadaan nabiga uu reebay salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi hadith imam al-bukhari wa imam muslim ay warinayaan hadith jabir radiyallahu anhuma jabirna oo nabiga ka warinayo jabir wuxuu leeyahay naha rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu turuqa qofka inuu habeen madow waqti dambe ahlkiisii oo ku soo dheelmado oo yaani si kada ugu yimaado ayuu nabigu reebay salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi مثلا سفر باكو مقريد reerkaaga safar inaad maqan tahay bay ogaayeen kuma oga inaad timid marka si kada ah inaad inta timaadid aairada ku soo garaacdo nabigu uu reebay kaleey salaatu wasalaam xayeel wax badan oo dhiba inuu la kulmo ayaa qofka dhici karayso nooc wuxuu iska noqon karaa hatta tajassus ah iyo barbaaris iyo wax lamid ah uu noqon karaa sida darteed waxa la rabaa inuu ahlkaagu og yahay ina iimaanayso adduunyada ilaahay hadda waa uu sakhiro telefoonaa jiro saacada ku soo aadan tahay da safar ka timaado oo og yahay reerka isku ka diyaarin markaas oo kala dib ma laha laakiin ayadoo lagu filaynin in albaabka ku soo gargaraacdo lama ogola xayela hatta faahisha iyo xumaan kale ba aysan jirin ninka waxa dhici karta xaaskiisii oo si kala ah oo yaani mandarkeedii oo si kala yahay inuu inta u yimaado qalbigiisa hatta uu ka jeesto nacaab dhici karayso marka waxyaalahaas oo idil saysan u dhicin yaani waxa la rabaa inuu qofku og yahay turuqaas la diidan yahay weeyaan marka wasamaa'i samadii baan ku dhaartay waa samada saqafka naga sareeyo weeyaan wattariqi xidigi guureynayna waa aan ku dhaartay wama adraaka maxaa ku ogeysiiyay nabiyullaahi maxamedo mattariqu xidigaas gudayo oo soconayo oo guureynayaa maxaa ku ogeysiiyay waxa uu yahay ma ogaan kartid inuu rabbigaaga ku sheego mooyee an-najmu wala fasiray marka maxaa yeelay wama adraaka markii la yiraahdo wama adraaka markii quraanka la yiraahdo wala fasiraa waxa ka dambeeyo laakiin wama yudrika markii la yiraahdo waxa ka dambeeyo lama fasiro nabiga looma sheego salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba looma sheego waqti dhacaysa lama oga qiyaamaha ma ogaan kartid weeyaan marka wama adraaka ma tariq bali wa loo fasiray an-najmu huwa tariqasi an-najmu hidigway hidigo athaaqibu dusaya oo iftiinkiisa meel kasta daloolinayo ka dhaxbaxayo weeyaan mugdi kasto yaani ka gudbaayo weeyaan marka wa an-najmu athaqib kan wa tafsir lit-tariqa loo jeeda wa an-najmu al-mudhi'u ba loo jeeda hidig ifayo weeye tariqaasi weeyaan maxaa yeelay waxa la yiraahdaa yaani thaqaba an-najmu thuquba ida adaa ba la yiraahdaa markuu ifo iftiinkiisana oo meel walba ka gudbaa yaa la yiraahdaa an-najmu athaqib la yiraahdaa qataada ibn di'ama mufassiriinta salafka kamidii wuxuu oran jiray inma sumiya an-najmu tariqa hidiga ilaahay wuxuu ku magacaabay tariq
لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار habeenkii baa la arkaa maalinkiina waa uu qarsooma marka waa mid maaratay guureynaya oo habeenkii socdo weeyaan habeenkii saasa loogu magacaabay buu leeyahay wama adraka ma tariq an-najm ath-thaqib wa hidigaas oo maaratay ifayo weeyaan in kullu nafsin lamma 'alayha hafidun in kullu nafsin ay ma kullu nafsin nafkasta kulligeed ma aha lamma 'alayha illa 'alayha haday nafi ahaato lamma 'alayha ay illa 'alayha dusheeda waxa ah xaafidun mid ilaaliyo oo malaa'ikta ilaahay kamida oo asaga ilaalinayo nafta ilaalinayo ayaa dusheeda ah weeyaan marka in kullu nafsin lamma 'alayha laba qiraa'o ayay maartu qiraa'adu akhriyaan qiraa'at Aasim ibn Amir iyo Hamza saddexdaas waxay akhriyaan lamma 'alayha ma la yiraahdo shadkaas oo miimka la shido weeyaan lamma bay akhrinayaan qiraa'adaas markii lamma 'alayha la yiraahdo macnaheedu marka wuxuu noqonayaa inta oo in kullu nafsin ku jirta waxaan ka dhigaynaa naafiyo wa in naafiya la yiraahdaa oo diida ku tusayso wax la diidayo ku tusi weeyaan lammaaduna bimaana illa bay noqonaysaa marka illa oo kale macnaheedii baa ku fasirayna marka macnaheedu wuxuu noqoni in kullu nafsin ay ma kullu nafsin nafkasta kulligeed ma aha lamma 'alayha illa haday ahaato 'alayha dusheeda waxa naftaasi xaafidun malag ilaaliyo ayaa dusheeda ah quraad inteeda soo hartay oo sida ibn kathir iyo naafi' iyo abu amr iyo kisaa'i aimadaas quraada iyo yaani quraada todobada kamidii waxay akhriyaan in kullu nafsin lama 'alayha hafidun yaani lama bay akhriyaan mimka mashidaan lama shido lama 'alayha bay akhrinayaan markii qiraa'ada takhfiif ka la akhriyo waxa weeyaan intu naafiye ma aha wa inta nuhadu ay yiraahdaan in al-mukhaffafatu min ath-thaqila li yiraahdo weeyaan innadhi oo tansibu al-ism wa tarfa' al-khabar ahayd innadhi ismkii khabarka qaadanaysay oo la takhfiifiyay ismkeeduna waa damiir sha'ni oo maxduuf oo meesha ku qadaran sidaas oo noqonaya weeyaan damiir sha'ni boo noqon lamaadana yaani markaas waxay leeyihiin laamtu yaani waxa weeyaan maadu waa zaa'ida weey laamtana waxa loo keeno maada loo galiyay waa laamul faariqa li yiraahdaa marka sida darteed waxay noqonaysaa marka in kullu nafsin innahu sha'niye kullu nafsin nafkasta kulligeed lama 'alayha ay la 'alayha dusheeda waxa ah xaafidun mid ilaaliya ayaa dusheeda ah macnaheedu marka sidaas oo noqoni weeyaan marka yaani labada qiraa'aba laba qiraa'o mutawaatira weeyaan labaduba macnahoodu marka sidaas oo noqoni xaafidka marka maxaa loo jeedaa xaafidka ilaalinayo oo dusheeda ihi waa maxay waa malaa'ikta ilaahi subhanahu wa ta'ala oo insaanka amalkiisa ilaalinayso amalka insaanka ilaalinayso weeyaan khayr iyo shar alla wixii qofka uu ku hadlo malaa'ikta qortaa loo jeedo oo xafadada la yiraahdo ayaa loo jeedaa weeyaan suuratul infitar aan ku soo marnay rabbi uu leeyahay wa inna 'alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun fi surati qaf aan ku soo marnay ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid malaa'iktaas xafadada ayaa dushiisa ah oo amalkiisa khayrkiisa iyo shartiisa ay ilaalinayaan ay qorayaan macnahaas waa la yiraahdaa ama in la yiraahdo yaani xafadadani ma ahan kuwii acmaasha dadka qorayay ee waa kuwa xaras ahoo malaa'ik ilaalo ahoo rabbi subhanahu wa ta'ala uu raaciyo insaanka oo waxyaalo badan ka ilaaliso waxyaalo badan oo shar ah ilaahay sababtooda uga ilaaliyo rabbi u diray malaa'iktaas waa la yiraahdaa aafooyin iyo balaayooyin badan oo ku soo socdo inuu ilaahay kaga ilaaliyo malaa'ika ilaalinayso waa lagu magacaabaa waana soo marnay fi suurati ar-ra'd allah oranayo
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وحيليهن يعني إنسانك وحوليه كوا لا عربية أو لجروا ملائكة oo hortiisa iyo gadaashiisa ah amarka ilaahayna ku ilaalinayo wixii aafaadka ah ay ilaahay dadkiisa oo raaciya oo malaa'iktaas weeyaan marka labada macno wanaagsan weeyaan intaas baan ku dhaartay in kullu nafsin lamma 'alayha haafizun jawaab qasamkii oo halkaas u dhacaya weeyaan wuxuu rabbi ku dhaartay naf kasta kulligeed inuu xaafid leeyahay malag ilaalinayo uu jiro weeyaan in kullu nafsin ay ma kullu nafsin naf kasta kulligeed ma aha lamma 'alayha illa 'alayha dusheeda waxa ah xaafidun baa mid ilaaliyo oo malaa'ikta ilaahay kamida ayaa ah weeyaan فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب هذا إنسانك الله سبحانه وتعالى وحا كأبوري أسل كيسا إنه ضعف ضعيف تنما إنه كأبوري أي ربنا تصينيا هاي قبال لي فلينظر هفيريو الإنسان قفك إنسانك وبني آدم كيه مما محيبا حقيسا خلق لغا أبوري وحا أساق لغا أبوري بل هايقو محيطا وحا لغا أبوري الله نوفسره خلق والله أبوري إنسانكي من ماء بيه حقود بالله أبوري بيه أو دافق بودبوذيو أما الشبميو حقود بالله أبوري ويا بيه سو يخرج صابحه من بين الصلب ببركة إيا والترائب كالحماها تحدوذا كصابحه يعني صلب من بين صلب الرجل ننك دبر كيسا إيه وترائب المرأة حوانتا يعني كالحمه هذا وحبت كذائه بيكسوا بحو أيو إلهي سبحانه وتعالى إنسان كاسك أبو ريويا مركا بني آدم وحلق أبو ري حفيري مركا لليهي ابن كثير وكال رحمه الله وحوليه وتنبيه براروجينوي تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه وبراروجين إنسان كاللغو براروجين أصل كيس لغا أبوري ضعيف كنمديس إنه ضعيف يهي أيا لغو ماركتي لغو براروجين وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعادي إنه لغو هنونيه inuu qiro in la soo celin karo mar hadii asalkaas laga abuuro daciifka ah barina in la soo celin karo maalinta qiyaamaha in lagu hanuuniyo darteed ayay tanbiih u tahay baraarujin weeyaan maxaa yeelay wuxuu leeyahay لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى الله مركه رب الله أود بأوليه سوعلنتيس إنه سوعلينا وليبا بطريق الأولى أيها لغو قرنا ياويا أود إنه أوليه نوال بوا فهمي كراويا مركا الله سبحانه وتعالى حفير يا بني آدم كان وأمرك الذي ذايو بلهرت وحا لغا أبوري حفير يا بالي فلينظر حفير يو الإنسان إنسانك ممن محيبا حقيس خلق لغا أبوري خلق والله أبوري إنسانك من ماء بيبا لغا أبوري حقي بيها سو دافق يعني شب ما يويا مركا ترى دفقت الماء إذا صببته بالإرادة مركا أديها بعد صوت شبته أيها الإرادة أرنسا يعني دفقت الماء بعده بيه بان شبي أيها أرنسا ويا مركا هذا الدافق أو فاعل كئه وبمعنى مفعول لوجيدا أو مثلا وحوي الدافق بمعنى مدفوق أو كلوية بيلا الداديي أو الشبي واسم مفعول كاسا لقدقه بيحسو يخرج كصبحه من بين صلب يعني من بين صلب الرجل ننك دبر كيس حقي وترائب المرأة حوين تحبت كذية كالحميه هذا يعني نحذو ذا كصبحه الله بيهم بني آدم كأبوره يعني ماركتي بني آدم كإلهي كأبوره منذئه إنه رجع حقي سنة دبرك كإيمان يسوع ولذا اللفها أقصر رأي كتما دبرك حوانتنا حبت كذا اللفها أقصر رأي كإيمان يان
ayuu rabbi noo sheegay subxaanahu wa tacaala weeye marka biyahaas oo markaasna labadoodiba raximka ku shubmayo labadii biyaba raximkii iyo minkii haweenta ku shubmayo saa loogu daadiyo ayuu bani aadamkaasi ka abuuray weeye marka farqiga bani aadamka iyo biyaha u dhaxeeya fiiri waa farqi aad u weyn weeye biyahaas adkaysa daciifka oo ilaahay min maa'in mahiin oo ku tilmaamo ba bani aadamkan awoodaale yaani ilaahay ka abuuray subxaanahu wa tacaala allihii marka biyaha ka abuuray awood buu u leeyahay bari markuu dhinto jirkiisu kala baxbaxo inuu isku soo celceliyo nooleeyo rabbi awood u leeyahay weeyaan innahu allah laqadirun allihi karaway ala raj'ihi insaanka soo celintiisa la soo celiyo yaani oo qiyaamihii markuu dhinto dabadeed qabrigiisa laga soo saaro oo la abaal mariya rabbi awood buu u leeyahay subxaanahu wa tacaala weeyaan innahu ala raj'ihi laqadirun laba macno bay mufassiriintu ay ku fasiraan innahu ala raj'ihi laqadirun in la yiraahdo markuu dhinto dabadeed inuu rabbi soo saaro oo qabrigiisa uu ka soo bixiyo yawm al-aakhirah iyo bacthigi oo keeno arsaat al-qiyaamah la keeno rabbi awood u leeyahay macnahaas waa la yiraahdaa macna kaleeto oo mufassiriinta qaar kamida sida mujaahid iyo ikrima ay kamid yihiin ay ku fasiraana innahu allah laqadirun allihi karaway ala raj'ihi biyahaas daafiqihi cilintooda oo lagu celiyo ila maqarrihi alladhi kharaja minhu maashi oo ka soo baxay in lagu celiyo rabbi awood buu u leeyahay subxaanahu wa tacaala macnahaasna way ku fasiraan mujaahid iyo ikrima kamid ah dadka ku fasiray yaani meeshu ka soo baxay oo ah dhabarkii ragga iyo kalxamihii iyo xabadkii dumarka in lagu celiyo allah subxaanahu wa tacaala awood buu u leeyahay weeyaan marka at-tara'ib waxa la yiraahdaa waa jamcu tariiba wa mawdi'u al-qilada min as-sadr ba la yiraahdaa xabadka meesha kuusha ay fuusho oo lafaha ugu sareeyay ayaa loo jeedaa walidaalika abdullah ibn abbas markuu fasiray wuxuu dhigi jiray hadhihi tara'ib markaasuu xabadkiisa gacanta saari jiray tara'ibta tana la yiraahdaa xabadku gacanta ku dhufan jiray weeyaan marka biyahaas oo yakhruju min bayni sulbi wa tara'iba meeshay ka yimaadeen inuu rabbi ku celiyo awood buu u leeyahay macnahaas mujaahid baa ku fasiriyay weeyaan yawma tubla saraa'iru udkur xus oo ka sheekay nabi ilaahi maxamedo yawma maalin dadkii ka sheeg oo xusuusi weey maalinka oo tubla saraa'iru yaani sirti siraryaalki la imtixaani doono oo banaanka la soo dhigi doono qof walba wuxuu qarsanayay maalinta la muujin doono banaanka la keeni doono maalintaas yaani xusuusi baa leeyahay yawma tubla saraa'ir sir kasta oo jirta maalinta qiyaamaha qof kasta wuxuu qarsado idin banaanka la keeni doona waa la muujini haday shar tahay iyo haday khayr tahayba ilaahi subhanahu wa ta'ala waa dhaahirinaya banaanka la soo dhigi weeyaa yawma tubla saraa'ir marka sirta qarsanaysa haday yaani xumaan tahay waa la dhaahirini sida imaam al-bukhari imaam muslim ba ay warinayaan hadith ibn umar sahiihoonkooda ay ku wariyaan nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamaha asagoo ka waramayo yurfa'u likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yuqalu hadha ghadratu fulan ibn fulan maalinta qiyaamaha markii la tago qof walba kulligi dhabarkiisa ama maarta dabadiisa ayaa calan laga taagaa calankaas ay ku qoran tahay hebel ballanka baxyadiisii iyo wuxuu qarsanayay waa tan aba la oranay banaanka la soo dhigay sirtii weeyaan maalintaas banaanka la keeni weey yawma maalin ka sheekay oo xusuusi dadkii tubla saraa'iru siraryaalki la dhaahirin doono la muujin doono yaani wixii qarsoona la muujin doono maalintaas bal dadkii xusuusi baa leeyahay markii sirtiisa insaanki banaanka la soo dhigo fama lahu min quwwatin wala nasir fama lahu ma ayna sugnaanin insaanki min quwwatin awood oo sirtiisa uu ku ceshto wala nasirin ahad kale u gargaaro oo asaga ka baxsanna uma sugnaanin oo ma haysto weeyaan maalinta ma helayo asna ma gargaarsan karo oo sirtiisi
iyo wixii ka ratibmayo cadaaba mid iska difaaci karo ama sintiisa cishan karaahi ma aha cid kale oo kor uga timaado u gargaari kartana lama arko weeyaan fama lahu masugnan insaanki maalintaasi min quwwatin awood oo durkii hayay iyo sirtiisiina uu ku cishto malaha way naftiisi uma hayo wala naasiri mid u gargaaro oo asaga ka baxsan oo cadaabka uu ku jiro uga gargaaraahina uma sugnaanin way was-samaa'i dhaatir raj'i wal ardi dhaatis sad'i innahu laqawlun faslun wama huwa bil hazl hadaba ilaahi qaar kale ayuu dhaaranaya quraanka inuu xaq yahay uu ku dhaaranay was-samaa'i samadii baan ku dhaartay samadii dhaatir raj'i roobka u saaxiibka ahayd yaani samadii roobka lahayd ayaan ku dhaartay wal ardi dhulkii baan ku dhaartay ardadii dhaatis sad'i jeexjeex u saaxiibka ahayd dildilaac u saaxiibka ahayd oo markuu dooga ka soo baxayo dildilaacaysay ayaan ku dhaartay innahu quraanki laqawlun hadal way hadalka oo faslun ay faasilun bayna al-haqq wal baatil haqq iyo baatil kala saaro wa kalaamullah oo haqq iyo baatilkii kala saarayo xalaashi xaraamti kala saaro kufrigi iyo iimaankii kala saaro weeyaan wama huwa quraankuna ma aha bil hazli ciyaar ma aha wax lagu ciyaaro oo hazli ah abad ma aha way dheel ma aha way baatil midna ma aha weeyaan marka quraanka haduusan abad iyo ahayn iyo ciyaar oo san ahayn waa xaq weey quraanka marka waa xaq weeyaan inuu kalaamullah yahay oo shay xaqi baadilka kala saaraya yahay iyo rabbi wuxuu ku adkeeyay dhaar oo dhaaranayo oo ku dhaaranayo makhluuqaadkiisa qayb kamid oo ku dhaaranayo was-samaa'i samadii baan ku dhaartay samadii dhaat ar-raj'i roobka u saaxiibka ahayd ar-raj'u wa al-matar balidahada maxaa raj'i loogu tilmaamay roobka waxay leeyihiin li'annahu yarji'u wa yaji'u wa yatakarrar يعني وصول نقضة ويمادا مربا مركا كدنبه سند والبا انتاسو جير بو دايا marka sidaa soo noqodkiisa mar haduu badan yahay ba rajci loogu tilmaamay marka laakiin roobkii baa loo jeedaa weeyaan maxay Abdullah ibn Abbas hadii jira ar-raj'u al-matar markaasuu dhii jira samada tumdir thumma tumtir way roobayn hadana way roobayn sidaas rajcigi loogu tilmaamay weeyaan samadii was-samaa'i samadii baan ku dhaartay samadii dhaat ar-raj'i roobka u saaxiibka ahayd والارض دلكي بان كبارتي دلكي ذات الصدع دلدلاع اي جحجاح او صاحبك احيد او maxay ku dildilaaci nabaadkaas weeyaan dooga ka soo baxayo ay darteeda la dildilaaci Abdullah ibn Abbas baa dhigi jiray huwa sidaahuha an an-nabati dildilaaca ay jexjeexmato doogaas ay la markuu soo baxayo oo afka uu la soo baxayo samadii ay dilaacayso ayaa loo jeedaa sadciga weeyaan labada shay baan ku dhaartay samadii ardadii oo labada tilmaamood watee innahu quraanki la qawlun hadal way hadalka oo faslun wax kala saaro oo wax kala bixiyo oo xaqi baadilka kala saaro weeyaan jawaab qasamki waa taa way dhaartii yaani maarta jawaabteedii waa taas weeyaan wama huwa quraankuna ma aha bil hazli ciyaar ma aha oo abad ma aha laana al hazlu wa ضد الجد baa la yiraahdaa jiddiga shayga dhabta ah waxa ka soo horjeeda hadal la yiraahdo dab waxa ka soo horjeeda ciyaar marka ciyaar ma aha waa shay dab ah weeyaan quraankan waa xaq weeye wuxuu ka hadlayana wax sugan weeyaan Allah saasuu leeyahay subhanahu wa ta'ala innahum yakiduna kayda wa akidu kayda hadaba mushrikiintii xumaanta ay sameyn jireen markay quraanka beeninayeen rasuulka beeninayeen xaqi uu la yimid ay diideen hadana ay hagarsan jireen nabiga iyo diinka islaamka ay hagarsan jireen ayuu rabbi nooga waramay innahum kuwi mushrikiinta aha oo kufaarti yakiiduna way hagarsadaan yaani maxay hagarsadaan quraanki bay hagarsanayaan wuxuu nabiga ilaahay u soo dhiibay oo xaqi ah ayay hagarsanayaan diinkii xaqa ahayd bay yaani dhagar ku sameeyaan weeyaan innahum ayaga kufaarti yakiiduna way hagarsanayaan quraanki iyo xaqi iyo diinkii dhabka ah kaydan hagarsi ayay hagarsanayaan hagartaas bay la yimaadaano waxay rabaan yaani xaqi inay buriyaan
baatilkana inay banaanka soo dhigaan iyo kufrigii bay doonayaan allah markuu wuxuu yiri asagoo ficilkooda jazihiisa ka waramayo wa akiidu anna waan hagarsani